بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامجka maxaa ka cusub ciyaaraha kubadda cagta waad ka daawataan cusub la TV horyaalka Ingiriiska ayaa furmaya maanta kooxda Arsenal ayaa safri doonta kooxda Crystal Palace balse naadiyada ka ciyaar horyaalka Ingiriiska ay raahdeen sida Chelsea ayaa ciyaartoy dhowr la soo wareegaysa intuusan horyaalka furmin Chelsea ayaa u muuqata in ay doonayeen sanadkan inay dhibic xataa ay lumiyaan Chelsea ayaa la soo wareegaysa ciyaartoy ay u baahan tahay in ay la soo seexato si ay horyaalka isugu diyaariso xilli ciyaareedkani kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo wareegtay maantana lagu dhawaaqay heshiiska ciyaaryahanka la yiraahdo Marco Corella ayaa Chelsea u saxiixay kana soo wareegay kooxda kubadda cagta ee Brighton balse kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lacag aad u waali ah ka bixisay ciyaaryahankani qiimo ku gaaraya ku dhawaad 60 milyan oo pound kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iska fasaxaysa sida la sheegay ciyaaryahanka liya Marcos Alonso ayaa ka ciyaara booska difaaca bidix kaasi oo maanta ay Chelsea keentay ciyaaryahanka Marco Corella balse Alonso ayaa booska heli doona naadiga Chelsea kaas oo u wareegi doona naadiga Barcelona sida la soo warinayo ciyaaryahanka ay la soo wareegtay Chelsea ee la yiraahdo Marco Corella ayaa lagu wadaa inuu u safto kulanka u horeeya ee kooxda kubadda cagta Chelsea ciyaari doonto maalinta Berita ee la ciyaari doonto kooxda Everton kulankaasi oo soo galaya 7:00 fiidnimo xilliga Geeska Afrika Chelsea ayaa dadejisay inay la soo seexato ciyaaryahankani maadaama Chelsea aysan doonayn inay wax dhibca ay lumiso horyaalka markuu bilaabanayo sidoo kale wili waxaanu ku jirnaa wararka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa doonaysa ciyaaryahanka la yiraahdo Wesley Fofana ayaa u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City tababaraha kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo maanta hadlayay ayaa sheegay in ciyaaryahankan uusan iibka ahayn kooxda kubadda cagta ee Leicester City balse mar qaar waxa la sheegay in ciyaaryahanka uu daneynayo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo uu ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo ka ciyaaraysa Champions League ciyaartoyda qaar ayaa jecel inay u ciyaaraan koox u tartamayso koobabka sidoo kalena ka ciyaarayso Champions League hadii ay Chelsea ay dul dhigto lacag aad u far badan waxa laga yaabaa in ciyaaryahankaasi uu ku biiro kooxda kubadda cagta Chelsea balse tababare Brendan Rodgers ee maamula kooxda Leicester City ayaa sheegay inaysan iibahayn ciyaaryahankan iyo sidoo kale ciyaaryahanka la yiraahdo James Maddison ayaa la xiriirinayaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle balse tababare Rodgers ayaa diidan inuu fasaxo ciyaartoydaas sidoo kale wuxuu sheegay inay fasaxi doonaan ciyaartoy dhowra balse aysan ku jirin ciyaartoydooda aad ku wanaagsan ama ciyaartoydooda qaab ciyaareedkooda aad wanaagsan inay fasaxi doonin tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay Cristiano Ronaldo sidoo kalena uu yahay Cristiano Ronaldo ciyaaryahan top ah sida inuu halkan sii joogi doonana uu sheegay wuxuuna ka mid yahay buu yiri ciyaartoyda ciyaari doonta koonka ugu horeeya horyaalka Ingiriiska sidoo kale wax laga weydiiyay ciyaaryahan Frenkie de Jong ee u ciyaar kooxda Barcelona ayaa wuxuu sheegay isagoo qoslaya inay doonayaan ciyaartoyda saxda ah inay la soo wareegaan isagoo diiday inuu wax commentiga ka bixiyo doonista ciyaaryahan Frenkie de Jong sidoo kale wariyaha ciyaaraha ka faallooda ee Fabrizio Romano ayaa sheegay in Lucas Torreira uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Galatasaray ee ka dhisan dalka Turkiga ciyaaryahankan ayaa ka wareegay kooxda kubadda cagta ee Arsenal qiimahan waxa lagu sheegay inuu gaarayo 6 ilaa inta u dhaxaysa 7 milyan oo euro sidoo kale waxa la soo warinayaa Chelsea inay daneynayso ciyaaryahanka la yiraahdo Aubameyang mar waxa laga weydiiyay tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea mar shir jaraa'id qabanayay ka hor kulanka ay la ciyaareen kooxda Everton ayaa waxa uu sheegay in uusan wax commenti uusan ka bixi doonin wararka la xiriirinaya ciyaaryahan Aubameyang inuu ku biiray kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa in ciyaaryahankan ay daneynayso maadaama Chelsea ay haysto striker la'aan Kai Havertz ayaa Chelsea sanadkan u ah nooba kaliya sidoo kale waxa la sheegayaa in Chelsea daneynayso ciyaaryahanka heshiiskiisa kooxda kubadda cagta Barcelona ay doonayso inay iska kansasho ee la yiraahdo Memphis Depay haddaba haddii aad tahay taageere Chelsea midkee ayaad qaadan lahayd labadan ciyaartoy waa ciyaaryahanka hore ee Arsenal Aubameyang iyo sidoo kale Memphis Depay oo u ciyaar kooxda Barcelona tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool mar wax laga weydiiyay in ciyaartoy ay la soo seexan doonaan wuxuu sheegay in kooxda ay dhaawacyo badan ciyaartoy kaga maqan yihiin taasina ay sax tahay balse inay hadda wuxuu sheegay inaysan waxba isbedelin wuxuu sheegay in dhaawacyada ciyaartoyda haysta dartiis inaysan ciyaartoy u soo iibsan doonin sidoo kale tababaraha ayaa sheegay
in suuqa kala iibsiga weli uu furan yahay wixii dhacana la arki doonee. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City mar wax laga weydiiyay ciyaaryahan Bernardo Silva oo lala xiriirinayo kooxda Barcelona ayaa sheegay inuu jecel yahay in ciyaaryahankaasi uu la sii joogo kooxda kubadda cagta Man City, balse wuxuu sheegay inuusan aqoonin wax dhici doona. Sidoo kale wuxuu sheegay waxay ku xiran tahay ciyaaryahanka doonistiisa, sidoo kale wuxuu sheegay in asiga uusan awood u lahayn ciyaaryahanka wax alaal wixii uu doono in uu ka celi karin asiga tababar ahaan. sidoo kale wuxuu sheegay in isaga uu doonayo in Bernardo Silva uu la joogo kooxda kubadda cagta Man City, sidoo kale wuxuu sheegay in arki doonaan wixii dhacay. barnaamijkii maxaa ka cusub kubadda cagtana waa naga inta oo ku maasantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddaa ku cusubtahay janaalka subscribe saar, sidoo kalena like saar videoga si asxaab fara badan u gaaro.